waayahay bismillaahi raxmaani raxiim dowladda soomaaliya oo farsamo cajiib ah kusoo iibsanayso diyaaradaha bakistan ay samayso ee loo yaqaano jf 17 block 3 noocooda casriga ah thirdka generationka ugu dambeeyey shalay waa idin sheegay laakiin waxbaa soo kordhay waxaan soo kordhayna waxay qusayaan kulankii xalay soomaaliya iyo sacuudiga iyo heshiiska military oo ay kala sixdeen oo diyaaradahan jf 17ka lagu soo hadal qaaday iyo Soomaaliya oo fahantayba ama loo soo bandhigay farsamo cajiib ah oo ay ku iibsan doonto ayadoo Sacuudiga loo maray xitaa farsamadaas waa taaban doonaa sidoo kale muxuu yahay saldhigan cusub saldhig military laakiin oo Soomaaliya ay leedahay adiga iska dhe elabor ground diyaaradeed oo diyaaradaha ay ugu soo degi karaan ee ka kici karaan Soomaaliya warkaada idin soo koobo Soomaaliya waxa loo soo jeediyay tan iyo markii Soomaaliya ay qadar tagtay oo Sacuudiga ay tagtay oo Pakistan ay firiya intaan oo dhan waa 2 weeks gudaheeda وفود سوماليا ملكست ولا كلا دري باكستان قطر سعودية تركيا مصر انتهاس بوحي سو جيديين دولة سوماليا مركي قريرد الفيريي دولك لو يغانا لاس عانود ان قرون ديارها ميليتريك اكسو امي اقرون ان ميليتريك او معمولو laga siyaabo diyaaradaha shacabkan inay ku degi karaan like elabor in dhulkaas laga dhiso si dowladda federaalka Soomaaliya oo aanan hadda wax lug ah ku lahayn aaga waqooyi indhana aanan u haynin oo indha hadda lagu dowladda ay ku hayn karto dhulkan Bawul Mandab gacanka cadmeed iyo dhulkan Arab Siiga ilaa baddaas kale ee anaga naga baxsan laakiin saameynta badan ee loo yaqaano Red Siiga si xulufadan asxaabtan hadda Soomaaliya saaxiibta la noqotay iyo diyaaradahan JF-17ka adiga almuhim ciidamada cirka ee Soomaaliya muqdisho in beeskooda uusan noqonino waqooyiga uu noqdo war dib noo soo celi xalay sacuudiga iyo Soomaaliya ninka fiqaa meesh joogay waxba lagu heshiiyey MOU pact waa la iswareystay waa la isxog wareystay Soomaaliya waxay tiri priority aniga waxaa muhiim ii ah difaaca cirka ka dhimanay wixii soo galay wixii baxay waxaa u baahan bayloodo noo tababaran way joogaan Pakistan soo tababaray ninka la yiraahdo Turkiga soo tababaray Masar soo tababartay ciidamada cirka Soomaaliya maanta noo tababaran kuwa dhulka hadda Soomaaliya boqolaal kun ciidan oo si adag u tababaran danab iyo waa maqasheen iyo harabcad iyo dadkaas oo dhan war waxaa joogo wiilal Soomaaliyeed oo diyaaradaha F17ka F16ka iyo F15ka iyo miigaga pilot u noqon karo wadi karo diyaaradaha JF-17 marka almuhim Soomaaliya wixii loo baahnaa horta way haysataa marka ciidamada cirka Soomaaliya base u baahan yihiin saldhigga maanta Soomaaliya qariirada markaa fiirisid meesha ugu saameynta badan waa dhulka waqooyi waay dowladda Soomaaliya hadaysan cirki maamuli karin waliba isla ciidamadeeda aysan wixii soo galaa imaaraad hadduu soo galo lagu burbursan karin fiiriya this is meesha bahasha xasaasi ee ka tahay dhulkaas waqooyi almuhim warka idin sheegay wuxuu yahay dhulka waqooyi Soomaaliya luga ku yeelan doontaa ciidamo cir iyo diyaaradana way soo socdaan adiga ka xanaaq ku farax adiga ku taala aniga wixii jiraan ku sheegay walaalkaygiyo waxba qabiil iyo igula soo ordinaan taas sheekada marka xiisaheeda waa kana waxa isku dinaysaa haye dhiilka Soomaali ka boyo dhiilka se Soomaali Sacuudiga wuxuu deen ku leeyahay Pakistan deen lagu leeyahay deenta lagu leeyahay Pakistan waa imisa $2 billion 2 bilyan oo dollar Pakistan lagu leeyahay Sacuudiga waxay tiri Pakistan oo saaxiib aan nahay heshiis military hadda waa galnay lacagta deenta ah kugu leeyahay waxba isiinine waxa ii sameeysaa diyaaradaha F6 diyaaradahan JF-17ka oo Pakistan uu leeyahay oo calaa xababa 30 milyan 40 milyan la gado ayuu Sacuudiga Pakistan waxay isku afgarteen in Sacuudiga hadduu Sacuudiga marba asaga diyaaradahaas JF-17 marba Sacuudiga shala ugu dambeysay Sacuudiga diyaaradaha generational asriga ah Mareykanka uu sameeyo ku ugu dambeeyo ciidamada cirka Mareykanka xitaa ku faanaan maxaa la dhahaa F35ka ayay Sacuudiga shalay soo bandhigtay marka uma baahna Sacuudiga JF-17ka oo anaga hadda dowladda Soomaaliya زائد ugu baahan tahay Sacuudiga uma baahno Sacuudiga marka qorshaha uu xalay soo bandhigay waa kii Suudaan
dhowr bil ka hor uu usoo bandhigay oo kale oo suudaan hadda ay ku haysato laba diyaaradood JF-17 suudaan fiiriya annaga waa naga daran tahay caasimadii dowladda ay xitaa silac kusoo gashay meel dhexdaas saas ay tahay sacuudiga bakistan wuxuu yidhi haye laba diyaarad soo dir u dir adiga waxaa waaye sacuudiga wuxuu amri karaa bakistan in diyaaradaha JF-17 ay hebel siiso wuu amri karaa sacuudiga meeshaan xiise ka leedaha baash bakistan iyo suudaan heshiis military iyo saaxiibtinimo oo kan bakistan iyo soomaaliya ka dhexeeya oo kale kama dhexeeyo saas ay tahay bakistan waxay ku qasbaneed in diyaaradahan JF-17 suudaan la geeyo hadda laakiin soomaaliya iyo bakistan waaba saaxiibo heshiisaaba la galnayba dhanka militariga ah saaxiibo lilayaanahay soomaaliya dowladda soomaaliya bakistan marka sacuudiga markuu berri email diro oo bakistan loo diro oo la dhaho haye 3 diyaari JF-17 muqdisho la geeyo bakistan asaaba dhahayba oh okay yeah soomaaliya saaxiibaaba nahayba marka wax caqabad ah ama wax hortaagan haddeertaan aniga uma jeedo dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa diyaaradahan inay soo dejiso magaalada muqdisho meel ku xareyso oo hungary ay u sameyso ciyaalka hala shaqaaleysiiyo hungary hala sameeyo elaboorkan laascaanoodna dowladda maadaama meesha saaxiib ay ku leedahay ama dowladda soomaaliya fargelin rasmi ay ku leedahay dhulkaas hadda elaboorka dhismihiisa si degdeg ah ku bilowdo koley ani wax kaloo hadda hortaagan uma jeedo marka intaasaa soo kortay warkii kooban haddaa idiin soo koobo sacuudiga iyo soomaaliya xalay waxaa la isku afgartay JF-17 in soomaaliya loo habayo loo diyaariyo soomaaliya hadda waxaa laga sugayaa in qoraalkii iyo elaboorkii iyo qaabkii iyo bayloodii wixii ay soo gudbiso bakistan ayaa kadib la amri doonaa in diyaaradahaas uu asagana soo bixi iyo dowladda soomaaliya oo gordhow ay noo soo bandhigi doonto elaboorkan cusub ay dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda saldhig u noqon doono ciidamada cirka ee laga dhisaayo dhulkan laascaanood